السلام عليكم أبو يحيى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا أنيقا هذا البدن مقابو مايا هذا البدن مقابو ميل هدي حمات والغا العرارة ماهي لوما سو أردو. أني برنامج كيغا مانتا وحوكو سابسان يحي نين أثبت دلمي الوصول دورتي دلمي حلال دلمي محكمين كراواي يا واحد محكمين كرا aniga taas ma sheegi karo idin taala barnaamijka wax yar waay laba ma hadaan wax arko waa soo gelaa bis intaas wax yar waay idinka kumitigeena ka dhiibanaysaan idinka like saareysaan fikirkiin idinka u banaantihiin idinka share gareynaysaan marka waxa way hadiiba ku anfaco share garee like saar community-gaagana ka dhiibo dadkaagana la wadaag. Okay, waxaan rabaa wax yar waaye waxaan rabaa inaan idin weydiiyo waxaan maqlayay qoladan la leeyahay aqalka sare siyaad baraaba laga diiday qoladan la leeyahay aqalka sare Soomaaliya ayaa waxay yiraahdeen madaxweynaha Mareykanka arinta uu Falastiin ku sameeyay waa xaqdaro arinta uu Falastiin ku sameeyay waa xaqdaro ayaga hadayba wax tarayaan ya xildhibaano daacad dadkeeda iyo dalkoodaba daacad u ay yihiin ilaahan idinku dhaarshe imisa Soomaali ayaa hoostooda ku dulman imisa Soomaali ayaa hoostooda lagu qalayo gaajaha loo qalo xoolahooda hala dhaco guryahooda ha lagu jiro hala kufsado ya maxay wax uga qaban laayihiin hatta ay intay boodaan sida Ilhaan Umar oo kale ay tagooyin macnaha bariga dhexe taas Ilhaan Umar ku kashifantay arintii bariga dhexe walaalayaal wax ma idin sheega dadkaas ma dhexgeli kartaan tiina ka baxatiina idin haysataaye idinkaaba kulligiina wada hogaamiye kooxeed ah wixii meesha ku jiro wixii dadka soo dilay dadka soo dhacay waay waxaan lagu sheegayo aqalka sare idinkaaba far idinku godanba maxaad xugmisaan ilaaha idinku dhaarshay maxaad xugmisaan idinkaaba dadkii dadka dhacay ah ya magac inaan sheego waa masiibo magac ma sheegay ani laakiin in walba asaga isgarana oo xildhibaan aqalka sare ah bal eeg fiiri waxaad arkaysaa qoomiyad oo dhan aan qofna ugu jirin qoomiyad oo dhan oo qof ugu jirin maxamed deeq waa ku salaamay qoomiyad oo dhan oo qof aan ugu jirin hadda Soomaali macnaha qoladan la leeyahay Soomaali Bantu yaa ugu jira ya Soomaali Bantu yaa ugu jira Soomaali Bantuna yaa ka badan markii idinkaaba kursiga sidaas ugu fadhidaane ya maxaad ka rabtiin ma Falastiin iyo Mareykan iyo Jini iyo balaayo waa ku salaamay walaashayda qaaliga ahayd waa ku salaamay maqlaysaa idinkaaba macnaha ku jirtaan bahashii kale meel cid la taagantihiin tuugnimaad ku timaadeen markii horeba doorasho dadbanaad ku timaadeen doorasho dadban hala macneeyo waa kaas doorasho waa la gartay doorasho dadban maxay tahay waa tuugnimo dad baa tuug ku tilmaamaysaa marka war ilaahan idinku dhaarshe aniga waxa waaye
kilibkay wax yar waa bes waay intaas macnaha wixii aan markaas arko ayaan ka hadla waana ka baxa idinka ra'yigiina u banaantihiin like saara maxaa la dhihi jiray share gareeya dadkiina la wadaaga communitygiina ka dhiibta taas idinkay idin jirtaa sidaasaan idin sheegayay nimankii dulmiga meesha ku taagnaa oo Cabdiraxmaan Faroole iyo Muuse Suudi iyo Cabdi Qaydiid iyo ayaaba waxay ii soo saarayaan Falastiin xaqdara lagu haystaa warya meeqa ruuxa xaqdara lagu haystaa oo Soomaali ah dad oo dalkooda iyo dadkoodaba Soomaali ka maqan imise xildhibaan ay ku leeyihiin baarlamaanka waryaa ya imise xildhibaan ay ku leeyihiin dalkooda lama hayo dadkooda lama hayo nacfigooda lama hayo ya masaakiinta xamar canshuurtii laga qaado ayay cunooyiin masaakiinta xamar canshuurtii laga qaado ayay cunooyiin dalkooda iyo dadkoodiina waa maqan yahay canshuurtoodana ma soo dhiibaan ya marka maxaa dadka aad u leedihiin Falastiin waxaa lagu haystaa xaqdaro kan xaqdaro war idinkaaba xaqdara meesha ku haysataane walaalayaalow dadka ha arkaane kumutiina ku dhiibta like saara share gareeya sidaasan uga baxaana kiibkeyga intaasuu la eg yahay wax ka badanna ma hayo heestaasaan ugu dambaysiinaa nabadgelyo iyo ammaano allah dulmidiidaan aragne yaadniyo dulmidoonaan qonin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaali weyn inta i dhegaysanaysa aniga halkaasaan uga baxayaa waxaan idinka codsanayaa inaad macnaha dadkii idinla wadaaga aad gaarsiisaan marka waxaa way aniga qabiilna ulama jeedo cid aan ula jeedo male laakiin wixii maanta ka dambeeya qofan usoo qaadanaa qof ayaan usoo qaadanaa subihiina waa soo gela habeenkiina waa soo gela oo xilliga Mareykanka subihiisa iyo galabtiisa xabadaan usoo qaadanaa ilaa heer madaxweyne wax alla wixii jira waa sheegaynaa ya inta maanta dulmigan socdana Soomaaliya no galabtina waxaan soo gelayaa sababta ay u dhismi la'day dawladda Galmudug
sababta ay u dhismi la'dahay dowladda galmudug ayaan ka hadlaa waayo dhe niman walaalahayga waay taladaydu waxay tahay aan siinaa taladaydu waxay tahay ayaan siinaa waayo dhe xaaraan xalaal ma dhasho laakiin xaaraan xalaal ma dhasho xalaal way dhashaa meeshaasayta waxa ka socdo waxaa waaye xoolo xaaraan ah ayaa ku batay lagama yaabo galmudug inay dowlad ka dhisanto laakiin taladayda anaa galabta siinaa hadday qaataanna waa la arka hadday diidaana waa arkaynaa hadday dhahan tala jareer ma rabnana oo mid san weyn taladiis maxaan ka yeelaynaan wallaahi bilay galmudug weligeed saasay ahaanaysaa laakiin hadday ogolaadaan walaalahayga waa u laxusanooya inkastoo aniga oo maanta wax faa'iida aan ka helin dagaaladan dhibta iyo rafaadka Soomaali aan ogahay oona qaarba ayaga u sabab ahaayeen laakiin taas aniga kuma jira haddana wixii wax u noqonay ayaan u sheegaya khayrna waa idin rajaynayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلمي إسكدايا سوماليا دلمي إسكدايا وانت لكن أقل كاسر عاد لذهن ماشاس دل كوذي مقان عاد ماشو كنا نوجينو يسين واحد وقلنا نوجينو يسين تنغنا والله فاهميا إنك أتك هشان واي ورنين دل كيسا مقان محاد كوضا تاذي أنا تنام بالله يا بناي أفضل كيسا مقان واي عيال برلمانكي هوسي لحظة يو انتاسا اوجرا كي ما انت adiga hantida ku soo saaray guryaha ku dhisay wax kasta ku sameeyayna laba miyaan booga ugu jirta war waxaas dulmi intaas la eg yaa arkay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh